ثابت عبد محمد oo bilowga bishii Abriil loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa soo jeedintiisa xilka looga qaaday 15 gudoomiye degmo iyadoo la ogsoon yahay in xilku meerta yahay haddana in 15 gudoomiye xilka laga qaado hal mar ayaa ah sababta ugu weyn ee la isweydiinayo gudoomiyaasha xilka laga qaaday ayaa degmooyinkan ka arriminayay 2 ilaa 4 sano inta u dhaxaysa taa oo ka dhigneed inay ahaayeen kuwo la falgalay xaaladaha adag ee ka jira degmooyinka ay maamulayeen in ay la qabsadaan ma ahayn wax sahlan maadaama ay ahaayeen dhalinyaro ku cusbaa maamulka dawladeed isla gudoomiyaasha cusub ayay waqti ku qaadan doontaa inay la qabsadaan maamulada degmooyinka Muqdisho maadaama tiro kamid ah ay ka yimaadeen qurbaha dhanka kale dawladda ayaa hore u sheegtay in caasimadda Muqdisho ay ku soo celin doonto amnigii lagu yaqaanay iyo quruxdii intaba si loo gaaro amniga iyo quruxdaas ee ay dawladdu sheegtay ayaa suurtagal ah inuu dib u dhac ku yimaado maadaama gudoomiyaasha degmooyinku ay u baahan yihiin la qabsi aqoon-yahanada ayaa aaminsan xilka qaadista safmareenka ah ee gudoomiyaasha degmooyinka inay tahay arin aan ku habboonayn maamulka dawladnimada xaaladan xamar ku jiro iyo nabadgelyada wax laga qabanaa iyo 15 qof oo khibrad u lahayd oo la falgashay oo dadka kala baratay oo ciidamada gacanta ku hayso hal subax in xilka laga wada qaado oo loo dhiibay 15 kale oo u badan tahay inay diaspora yihiin oo xaaladda dhanba ay ku cusub tahay kuwaas waxaa dhihi jirnay waa ciyaar Suudaan aan dhihi jirnay Soomaaliya laakiin gudaha wax ku barteen inta badan waa ku noolaayeen inta laakiin hadda sidii la sheegay aniga damooda ogi haday diaspora wada yihiin 15 ka cusub iyo lafteeda miisaan kale dhumane murti ama xikmadda ku jirto in la yiraahdo laga qaado 15 hal mar xaaladan iyadoo waliba arrin haddana maqaamka Muqdisho la leeyahay bariyahan ay socotay oo dawladda iyo dad in iska arkaan ay ahayd intii laga sugayay aan go'aan midaysan ka wada gaarno in looga baxay dadkana fawday keenayaan marka oo arrin muhiim u ahayd aad uga baxday murtida ku jirto 15 qof dad xal laga qaaday sidoo wax weyn ma ah kelmad aan ku macnay aniga wax fasaad aan dhigi karaa amal iska wax iska fasaad iska ciyaar gudoomiyaasha dhalinyarada ah xilka laga qaaday oo aan meel kale loogu bedelin ayay sidoo kale aaminsan yihiin aqoon-yahanadu inay yeelan doonto saameyn taban nimankan xilka aad ka qaaday nabadgelyadooda lafteeda in laga fikiro nabad baciidana walaha security dawlad darteeda u deymoobay oo aad u galay maanta xil laga qaado gaadiidkii iyo mahelaay iyo ciidanku isku weeraraya qaradkii ma la bixi karin baasaboor diaspora meesto iska tagi karin siga baxar ku jira marka taargeedo naqdaasi gudoomiyaal hore u soo maamulay degmooyinka gobolka Banaadir ayaa go'aan aan sax ahayn ku tilmaamay xilka qaadista safmareenka ah ee lagu sameeyay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir waa ku kala tartami jirnaa amniga iyo arrimaha bulshada isdhaxgalka bulshada iyo bilicsuucinta ku tartami jirnay markasta kaalinta koowaad ama kaalinta labaad aniga gali jiray shahaadooyin oo madaxweyne Xasan Sheekh Nasiib iyo lacag abaalmarin anagoo 3 degmo ah howladaag iyo warta nabadda iyo Yaaqshiid iyo Axmed Daaci oo markaas amniga ku guuleystay waa aragtay Axmed Daaci ximnihiisu ku waayay abaalmarintan waxaana laga dhigay keentay ka hartay isla markaa inta degmooyinkana laga qaaday dawladda markaas jirta group ee ka tirsan oo dhalinyaro ah lagu bedelay lagu bedelay dalka waa u soo shaqeynaa xaquuqan ku leenahay amnigeena meel lama saarin xaquuqdeena meel lama saarin xilligiina laga qaaday degmooyinka ilaa hadda 3 sano ka soo wareegtay ku xigeenadeena waa la wada dilay jidadka lagu wada dilay gudoomiye waaxeedyadii waa la dilay dadku hadduu shaqeeyo adduunyada waa dhacdaa qof laga qaado xilkay gudahoodii la yiraahdo oo meel kale la geeyo ama shaqada laga qaado laakiin gees in laga maro oo la yiraahdo ma jirtaan waa wax nagu cusub hadda nimankan doorasho lama gelin dawladdii ka qaaday 17 ma mari karaan meelna waxayna u eedoobeen waddanka shaqadiisa u eedoobeen mooye waxay wax ka xadeen ama wax ka dhaceen oo kale ma jiro ayagoo waddanka u eedoobay in la yiraahdo raalli ahaada aad iyo aad aan uga xunnahay arrintaas